aniga marka astaanta adeegaha waxaan u aqaanaa 3 arrimood oo kaliya mid afraad qofkii keena khayr Allah siiyo kow waa amaanada waxaad umadu ay isku waxay umadu kulli ay aruurisay oo laga qaaday in amaanada loo hayo oo sidii loogu hayo oo si cad ah oo waxyaabaha hadda halkan maanta aan ugu nimid oo European Unionka iyo World Bankiga ay bilaabeen inay nagu aaminaan oo kalsooni aan kaga helnay maxaa yeelay waxay arkeen dhaqankii ay yaqaaneen oo wadamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilawnay laakiin shaqo badan ay noo hasan tahay marka awalba lacagtaan way hayeen waxay rabeen waxay isku dayayaan inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooda u maamulaan inaan dadkeena u maamulno khasab kuma lihin waxayna siinayaan ogaada aabayaasheenna ma aha adeeradeenna ma aha tan labaad waa cadaalad dal aan cadaalad lahayn system cadaalad aan lahayn macnaheedu dee ma istaagi karo wax shaqayn karana ma laha marka cadaaladdu waa number 1 weeye cadaaladdu waa number 1 marka qofka aniga aan ugu horeeyo waxaan laga rabaa waxay tahay amaanada ummadda inaan u adkeenno cadaaladda inaan qofna qabiil ku fogeynin qabiil ku soo dhaweynin cadaalad aan u falo iyo siyaasad runta qaana siyaasadda waxaan u naqaanaa meel isku khiyaamo xero baraayo ka socoto oo nin walba ninka uu ka khiyaano badan yahay uu maxaan ku raahdaa ka faa'iido badan yahay saas maaha siyaasad haddaad maqashaan waa xal raadis xal been laguma raadin karo xal runtay taqaanaa haddaad dhimacdo inaad gurigaan dhisto oo aadan columnskii dhabta ahaa aadan gelin oo lacagta aad kala xaddo gurigan waa dumaya waa xaqiiq way marka siyaasadduna dee ummad badan oo millions ah yaad maamulaysaa been kuma maamuli kartid saas darteed waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed dad fiican iyo ahaan jireen laakiin waxbaa dhacay dhib baa dhacay waxaa la rabaa dhaqankii fiicnaa ee Soomaalidu lahaan jirtay in la soo celiyo oo ahaa qayb ka ahaa 30 sano ugu horreeyay wixii dhisay dowladnimadeena iyo qarannimadeena oo ah in la barbood gareeyo dadka iimaanka fiican leh oo amaanada leh sidaan sheegay qof iimaan aan lahayn oo waxba lagu soo gaarin inaanan in la iska fogeeyo oo haddii mar la arko qofka dhaqankaas uu leeyahay xitaa society-ga laga calaamadeeyo business community waa leeyahay dadka businesska ah waxyaabaha Soomaaliya ee runtii u badbaadi ka mid tahay waxyaabaha u badbaadeen waxaa ka mid ah haddii hal mar qof uu wax khiyaamo waa la isu sheegay qofkaasna cid la macaamilaysa ma jirayso siyaasaddan waxaa loo baahan yahay hawshaas in la sameeyo labo dadka xishoodka fiican oo hayada leh oo anshaxa wanaagsan oo dhaqanka fiican in siyaasadda ay soo galaan oo la barmood gareeyo ma aha nin walba ninkuu ka dhibaato badan yahay ka kharaabsan yahay ma aha oo ay Soomaalidu tiraahdo waa nin raga waa in la soo celiyo dadkii Soomaaliyeed oo qabka lahaa qabka Soomaaliga lahaa oo aan ogolayn gardarro oo aan ogolayn inay wax u qaataan oo orgoolyada lahaa in la soo celiyo Soomaalidu weligeed saasaan ugu yaqaanay waxaad arkaysaa qof aan waxba haysan laakiin sharaf ilaashanaya hadday noqoto sharafkiisa xitaa inuu u dhinto diyaar u ah inuu u dhinto oo aan wax u qaadanin inaan soo celino dadkii dhiifanaa oo firfircoonaa oo maskaxda fiicnaa oo creativity lahaa inaan soo celino Soomaalidu waxa lagu tilmaamaa dad aad u firfircoon inay yihiin oo qurumo hore jiri jiray oo xitaa dad badan yiraahdaan waxay ka dambeeyaan dadkii faraacinada ka dambeeya la yiraahdaa macnaheedu waxay tahay dad aad maskaxdooda u shaqeysa oo creativity leh oo aan ahayn dad cusub marka inaan raadino dadkii fiicnaa ayna raadin qof hurda runta wax wanaagsan weeye
diinteenaa sheegtay qofku haddii mar uusan runta aqoonin islaamnimadiisa shaki ayaa ku jira maxaa yeele qof aaminaya ma laha geesi soomaalidu waxay ahayn dad geesiyiin oo riski takers ah inkastoo dee riskiga xitaa badanaaba oo aada loo qaato usan fiicnayn oo taxadarka loo baahan yahay laakiin wax lagu ammaano weeye soomaalida geesinimada waxaan idiin sheegayaa annaga askarteena runtii waa askar aad iyo aad u fiican waxaa lagu tilmaama inay yihiin geesiyiin inkastoo ay u badan loo baahan yahay in tababar fiican la siiyo in wadaniyaddii lagu xoojiyo in discibliin la siiyo in la dhaqaaleeyo iyagoo intaasoo dhan ka dhibaataysan yaa haddana ciidamadan nala jooga waxay leeyihiin soomaalida iyagoo ay saas tahay dad caadi ah maaha tan ugu muhiimsan wadaniyad in laga xishooda maaha wadanigu waxa weeye qofka dadkiisa jecel dalkiisa jecel oo aanan horar ku ahayn ummado kale inuu dhibaateeyo laakiin gurigiisa ilaashanayo difaacanaya diintiisa difaacanaya dariskiisa iyo deegaankiisa difaacanaya dadnimadiisa difaacanaya taariikhdiisa difaacanaya wadani waa kaas haddii aan rabno inaan soo celino sharafkii iyo karaamadii iyo qarannimadii soomaaliyeed haddaan rabno inaan soo celino waxaa la rabaa kulli inaan qayb ka wada qaadano dib u dhiska dowladnimadeena laakiin caadadii xumayd oo qabiilka loo kacaayey oo loo dhimanayay dad badan baa u dhintay oo dhulka maxaan ku raahdaa loo aasay dalna ma hayno weli magac fiicanna ma hayno dad badanna waa naga lacdeen bal ka warrama intaas haddee wadaniyad u dhiman lahaayeen magacooda iyo taariikhdooda meela lagu qori lahaa dalkaana meel saru gaari lahaa taasaa idiin sheegaya saas darteed dib u dhiska dowladnimada kulli in laga wada qayb qaato oo aan loo daynin madaxweyne iyo prime minister iyo guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne dowlad goboleed iyo wasiiro aan loo daynin iyagu waa adeegi inaad fiirsataan adeegayaashaas kii shaqo fiican qabta aada ammaantaan ama aada taageertaan kii shaqo fiican kii shaqo xun qabtana aada tuurtaan